Waxaan rabaa in halkan ka sheego qiso na dhex martay aniga iyo Malyuun Cali ama si aad u taqaanid Maama Malyuun. Maama Malyuun aniga iyadoo homeless ah oo guri haysanin oo guriga laga soo bixiyay oo baabuur dhex seexato ayaan kasoo waday gurigeyga ayaan keenay. Markii aan keenay gurigeyga qiso yaab leh ayaa aniga iyo ayadana dhex martay. Qisadana dhex martay waxaa weeye gurigan muddo isbuuc ah ayay gurigeyga ila joogta aniga marka koowaad. Si aad ula socotiinba si ay hore inoogu sheegtay oo ay tiri wiil baa isoo xareeyay oo hawiye ah oo gurigiisa i geeyay anoo homeless oo wadada jaqiiq ka dhahaya. Markii aan soo xareeyay gurigeyga aan keenay dhabtii anigu kama filayn waxyaabaha la soo baxday in ay anigu sameyn doonto. Anigu waxay agtida ka eed maamo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo sharaf leh mudneena in lagu sii daayo banaanka ama wadadaas ay ku noolaato. Marka waan soo xareeyay markaan soo xareeyay waxaa dhacday anoo maalin soo qabeystay oo musqusha ka soo baxay markaa shukumaan iyo buuma ayaan watay. Waqtiga qof dhalinyarada mar walba markuu soo qabeysto oo buuma soo qaato marka aniga waa si iloobay in qof guriga ila joogto. Marka guriga wuxuu ka kooban yahay 2 qol iyo qol fadhi ah iyo kushiinka musqusha waa marka anoo qolka fadhiga soo dhex maray iyada guri qolkeeda ku ogay waxaan arkay iyadoo fadhiga fadhiso oo TV daawanayso ayay buumadeedii iyo waxay aragtay guskiga kacsan oo buumadeeda kasoo taagan iyo shukumaan garabka i saaran yahay. Anigu runtii waan isku naxay. Markaas kadib waxaa dhacday in Malyuun Cali ama Maama Malyuun si aad u taqaanid i tiraahdo kale soo fadhiiso kafee cab ila daawo TV. Ana waxaan ku yiri haddaan soo qabeystay waxaan rabaa dharka inaan soo bedelo dharka aan guriga joogo aan soo qaato waayo hadda ayaa shaqo ka imaaday hadda dhow. Marka kadib raashin aan raadsanaa markaan aan raashin cuno kadib ayaan TV isla fiirsanayna maama dhib malaha ayaan ku dhahay may waa soo istaagtay gacanta ay soo qabatay anigoo baahan oo markii soo qabeystay ayay agteeda isoo fariisisay. Kadib waxay igu bilowday sheeko inay waxyaabo iga sheekayso oo qaabkii guurka ay soo martay 15 nin waxyaabahaas iga sheekaysay. Marka waxaan ku yiri maxaan harta maama dhib weyn ayaa ku soo gaaray intaas nin inaad soo guursatay oo aad haddana ilmo dhashay oo kuma qasaaran dhahay dhib ku soo gaaray laakiin guurkii aad soo martay kuma qasaarin waayo hadda caruur ayaad haysataa caruur ayaa leedahay inkastoo caruurtaada ay hadda ay kula joogin. Marka dhib adduunya lama sii qaad ayaan ku yiri aniga maamaday kala tahay hooyaday kala tahay gurigan sida doonta u joogi kartaa xiliga rabtida joogi kartaa xiliga guri hayshane waa ka bixi kartaa dhib malaha. Marka mar walbana waa ku furan yahay albaabkayga aniga albaab furan lama gala qalbi furan la gala qalbigayga ku furan. Markaas gacanta ay ajarkayga saaratay ayadoo oo si hadlayso ayaa waxaa ka mid ah hadaladeeda in ay ugu tiri ninkii ugu dambeeyay ayaa ugu raagsanaa intii nin oo isu guursaday. Waxaan ku yiri rag isku mid ma aha nin walba si waayo qof dabeecad xun yahay qofna waa nin rageedo dumarku wuu karaameeyaa. Marka hadduu raagsana waxa u wanaagsaneed inkastoo calaf dhamaaday in aad la joogtid oo aad wada joogtiin oo aad mustaqbalkiin iyo waqtigiina aad sii qaadatiin ayaa ku wanaagsaneed ayaan ku iri. Markaas kadib waxay u tiri saas kama wada aniga waxaan ka wada sariirtu ku fiicnaa. Waxaan dhahay hadduu sariirtu ku fiicnaa maxaad iskaga furtay marka nin wanaagsan ayuu ahaa maxaad u hayso waysay. Waxay ugu tiri kama helin camal calafna waa iska dhamaaday. Marka waxaan ku yiri hadda aniga anoo la kaftamaya waxaan ku iri dab casar maxaa isku habi waysay dab casar asna iska bulo waay. Waxay ugu tiri dab casar waxaan fiirsaday asoo video ku dhahay ilaahay geedka beer iga dhig markii waa ka cabsaday inuu waxba haynin. Marka waxaan dhahay marka dhib malaha channel YouTube sameysana adigana ila share garay channelka YouTube-keeda marka waxaan rabaa inaad iga caawisid si aan subscribe badan u helo video aad ila sameysid. Marka waxay tiri dhib malaha haddaan is guursano ka waran aniga adiga. Waxaan ku yiri aniga hadda qof iska bulahay oo xaas ma qaba mid kale adigana waxaa tahay maamo Soomaaliyeed oo weyn. Marka hooyaday kale ayaa la faacdahay eedaday kale ayaa tahay
marka ani adi isma guursan karna dhib weyn waayo ayaan ku iri oo waayo aniga familkeyga igama aqbalayaan in qof weyn oo hooyaday lafaa inaan guursado. Marka adiga waxay tiri family iska dhaaf, arrinteena hoos aan u dhammaysanaynaa, arrimahaas hoos ayaan ka dhammaysanaynaa. Gurigaadana hadda si aan u joogo marti camal oo igu soo dhaweysa dadka u ogyihiin ayaan guriga ku joogaa. Guri markaa qaatana ani adi dad oo isbartiyo oo guri aad kusoo xareyso kale ayaan noqonaynaa, dad kale nagama sheekeynayaan, arrimahan hoos ayaan u dhammaysanaynaa ayay igu tiri iyadoo gacanta cajarka iga saaran tahay, gacanteeda cajarka iga saaran tahay. Marka waxaan ku yiri dhima laha aniga horta arrimahaas horta kuma fikirin weligay, mana laga yaabo inaan ku fikiro. Marka aniga gabar ayaan jeclahay, marka iga dhaaf barnaamijkaas ma gaari karo ayaan ku yiri. Haddaan rabtid dab casir ayaan kusoo dhammaynayaa ama nin kale oo oday ah oo magaalada nala degan. Waxaan dhahay ninka dariskii guri dariskii dabaqaanta iga sarreeya nin Soomaaliya degan oday oo iskaabula ah oo jiro 56 sano, ninkaas ka waran.